بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. درسنا maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 101 ee suuratul baqara kamid ah. wali waxaan ku jirnaa aayadihii ka hadlayay reer banu Israa'iil oo quraanku si aad u faahfaahsan oo uga hadlay oo ay mudan tahay xataa inaan isdul taagno oo aan duruus ka qaadano wax intaas loogu celcelinayo waxa ay tahay shirqoolkooda iyo makrigooda ayaa aad u badan. dadkii la noolaadayna aad way u yaqaanaan shartooda inay meel walba gaartayna waa ay caddahay. marka suuratul baqara si xoog leh oo aad u faahfaahsan ay dhaqankooda iyo meesha ay ka soo jeedaan iyo sida ay tahay ay noogu faahfaahis. kitaabkan intuuna soo degin quraanka ah kutub ayay haysteen, dadka ayay u sheegi jireen xaq iyo inay ayagu ku toosan yihiin. waxaana la isku ogaa kitaabka ugu dambeeyay markuu yimaado inay rumeeyaan oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam tilmaamihiisa oo dhan ayay sii haysteen. waata quraanku uu leeyahay yajiduunahu maktuban cindahum fi at-tawraati wal-injiil. sidii la soo ogaa inay saas ay tahay oo kuwa nasaarada ahna nabi ciise oo ugu sii bishaareeyay oo sii sheegay wa mubashiran bi rasuulin yaati min ba'di ismu ahmed oo saa sii sheegay. haddana markii quraankii uu waqtigiisii la gaaray oo nabigii la soo diray mowqifka ay ka qaateen ay aayadaha haddana inoo tilmaamayaan. walamma goortii jaa'ahum u yimid rasuul min cindillaahi ilaahi agtiisa ka yimid musaddiqun rumaynaaya limaa macahum waxa ayaga ay haystaan oo kutub ah. rasuul ilaahay agtiisa laga soo diray oo wax cusub aan wadin ee kutubtii ayagu ay haysteen ahkaamtii ay sheegeen iyo aqeedadii ay sheegeen waafaqsan oo ayna iskhilaafsanayn. sababtu maxay tahay? kutubta ilaahay hal meel ay ka wada yimaadaan. walamma goortii jaa'ahum u yimid rasuul min cindillaahi ilaahay agtiisa laga soo diray rasuulkaasoo musaddiqun rumaysan limaa macahum waxa ayaga agtooda ahaaday markuu u yimaado nabada way tuureen fariiqun koox min alladhiina kuwii kamida uutul kitaabka la siiyey kitaab allahi ilaahay kitaabkiisay ka tuureen waraa'a dhuhuurihim dhabarkooda gadaashiisa ayay ka tuureen kaannahum waxaad u malaysaaba laa yaclamuuna inayna garanaynin ama ina aqoonin. quraanku suu fadeexaynaayo yahuuda balfiire waxaa markuu rasuulkaas u yimaado kitaabkaana ula yimaado nabada fariiqun koox way tuureen oo min alladhiina kuwii kamida uutul kitaabka la siiyey kitaab allahi ilaahay kitaabkii ilaahay ayay waraa'a dhuhuurihim ka tuureen. kitaabkii ay haysteen oo kitaabkii ilaahay ahaa oo tawreed ahaa oo inay rumeeyaanna loogu sheegay markii uu rasuulku yimid soo lama rabin inay yiraahdaan waa kii naloo sheegay oo ay soo dhaweeyaan ma ayna yeelin. suuradahan bilowgeeda waxaan ku soo maraa iyagoo la talinayo oo leeyahay waad ogtiin rasuulkan inuu xaq yahay idinku ha diidmada kitaabkan la diidaayo ha bilaabina wala takunu awwala kaafirin bih kuwa ugu horgaalooba idinku ha noqonina kuwa kalaaba diidi doona idinkii laakiin si yaqaanay saasa yeelina. wixii looga digay ayay ku dhaceen oo kitaabkii markuu yimid rasuulkii la soo diray dhaqankooda wuxuu noqday nabada way tuureen fariiqun koox min alladhiina kuwii kamida uutul kitaabka la siiyey kitaab allahi ilaahay kitaabkiisii ayay ka tuureen waraa'a dhuhuurihim dhabarkooda gadaashiisa ayay ka tuureen kaannahum waxaad u malaysaaba laa yaclamuuna inayna garanaynin ama ina aqooninba. kitaabkii markii la yidhahdo war soo bixiyo soo sifaadka nabiga kuma yaala kitaabkii waxay leeyihiin ma kuma yaalo. kitaabkii tawreed ah ee yaqaaneen iyaga lagu soo dejiyay ee sheegay kitaabka inuu iman doono rasuul oo kitaab lagu soo dejin doono yaa way inkireeno waxaad u malaysaa kaannahum laa yaclamuun sida iyagoo aan garanaynin oo kale ayay u dhaqmeen. kaasaana ugu xun ruuxa caalimka ah ee waxa uu yaqaano haddana ku camal fali waaya. sifada uu leeyahay waa sifada yahuuda lagu yaqaano. yahuuda ayagoo cilmigii yaqaanay oo kitaabkii tawreed ah loogu sheegay tilmaamaha nabiga oo quraanka uu tilmaamay inay caruurtooda si u yaqaanaan oo kale nabiga u yaqaanaan alladina aataynaahumul kitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum ayagoo ah ayay iska tuureen kitaabkii. marka ku camal falaantii ayay saas waxay u noqdeen kaannahum laa yaclamuun sidii ayagoo aan garanaynin oo kale. wattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan. aayadan waxay ku soo degtay
nimankan la yiraahdo yahuuda yaa markii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay rususha ayaa wuxuu ku soo daray nabi Suleymaan inuu rususha kamid yahay markaas yahuuda qaarkood waxay yiraahdeen maxamed miidan la yaabaynin nabi daawud wiilkii uu dhalay ee Suleymaan ahaa ayuu nabi ka dhigayaa waa nabi Suleymaan ayuu leeyahay miidan la yaabaynin wallahi ma kaana illa saaxiran waxay yiraahdeen saaxir ayuu ahaa nabi Suleymaan nabi ma uusan ahayn maxamedna wuxuu ku darayaa rususha la soo diray markaas sixirkan ay sheegi iyo waxay tahay iyo waqtiga nabi Suleymaan wixii dhacay arrin ku saabsan ayay ayadahan ka hadlayaan nabi Suleymaan inuusan arrintaas una ahayn wax ay sheegeen oo saaxir uusan ahayn ee rasuul ilaahi uu soo diray uu yahay marka bal arrintaas ayada si loogu jawaabo ay aayadan ku soo degtay waxa la tabacu kuwan yahuudahi waxay raaceen ma tatlu shayaatiintu waxa ay akhrin jireen ala mulki Suleymaana nabi Suleymaan mulkigiisi xilligiisi ala mulki Suleymaan ay ala ahdi mulki Suleymaan nabi Suleymaan xukunkiisa markuu jiray shayaatiintu wixii ay akhrin jireen ay kuwan yahuuda ay raacsan yihiin yani waa wax quraafaad oo ayagu ay iska samaysteen oo sixir iyo balaayo jinn ayagu ay meelaha ka soo ururiyeen oo cilmigiisa isku aadiyeen ayay raacayaan niman xaqdoon ah oo kutubta ilaahay uu soo dejiyay ee xaq ah rumaysan ma ah quraafaad iyo waxaan loo joogin ayay yaqaanaan wattabacu waxay raaceen ma tatlu shayaatiintu wixii ay akhrinayeen wattabacu waxay raaceen ma tatlu shayaatiintu wixii ay akhrinayeen ala mulki Suleymaan nabi Suleymaan mulkigiisi xilligii uu jiray yani waqti nabi Suleymaan uu noolaa ee asaga uu mulkiga haayay la nabi Suleymaan wuxuu kamid yahay taariikhda dadka soo maray ee adduunka xukumay ayuu ku jiraa waxa leeyahay adduunka oo dhan 4 nin ayaa xukuntay yani 4 qof ayaa u suurta gashay inay adduunka oo dhan hal mar ka wada taliyaan laba mu'miniin ayay ahaayeen labana gaala ayay ahaayeen labada mu'miniinta ah nabi Suleymaan ayaa kamid ah iyo dhulqarnayn ninka la yiraahdo oo suuratul kahfi ilaahay uu kaga hadlay qisadiisa si ay tahay labadaas mu'miniin ayay ahaayeen adduunka ayay xukumeen kuwa gaalada ahna waxa kamid ah ninka la jiray Namruud iyo Bukhtunasar laba la yiraahdo oo ayagana awood isbiday ayay ahaayeen marka kuwan yani yahuuda ahi waxa ay dadka diin uga dhigayaan waqti nabi Suleymaan uu xukunka haayay ee uu noolaa shayaatiin markaas wax akhrisay oo wax isku aadisay oo kuwooda insiga ah dhulka jooga intay wax qalbigooda ku waswaasiyeen kuwaas ay wax sii qoreen oo kitaab ilaahay uu soo dejiyay aan ahayn wax uu isku aadiyay ay tahay kaasay diin u haystaan oo kaasay raacsan yihiin ee xukunkii ilaahay uu soo dejiyay ama tawreed aha ama injiil aha ama kutubtii ilaahay la yaqaanay ma raacsana nimankan shayaatiin waxay isku aadiyeen ay raacsan yihiin wattabacu waxay raaceen ma tatru shayaatiintu waxa ay akhrinayeen ala mulki Suleymaan xilligii nabi Suleymaan wama kafara Suleymaan nabi Suleymaan ma uusan kufrinin walaakin shayaatiinta ayaa kafaru kufriyan yani kuwa waxay yiraahdeen sixir ayuu nabi Suleymaan sameeyay jiray sixir la sameeyana waa lagu kufriyaa marka nabi Suleymaan muuna kufrinin sixirna muuna sameeynin saaxirna muusan ahayn ee kuwa kufriyay waa shayaatiintii ama kuwa qarsan ha ahaadeen ama kuwa banaanka joogay bini aadamka ahaadeen oo sixirka yani dadka yani ku sameeyay jiray kuwaas waa kuwa kufri ee nabi Suleymaan ma ah wama kafara Suleymaan muusan kufrinin walaakin hasayashay shayaatiinta ayaa kafaru kufriyeen yuallimuna an-naasa dadka waxay baraayeen as-sixirka yani shayaatiintan kufrisay waxa ay ku kufriyeen waxa ay tahay dadka ayay sixirka baraayeen yani dadka oo sixir la baraayo waa lagu kufriyaa marka yuallimuna waxay baraayeen an-naasa dadka ayay as-sixirka baraan sixirku waa waxun diinteenu ma ay ogolo يعني dadka ka shaqeeyana waxun ayay ka shaqeeyaan dambigaasna waa dambi kabaa'irta iyo waxyaabaha waaweyn ayuu ku jiraa marka wax intii isku aadiyo in dadka la sixraay shayaadiintaas sixirka samaysay ee ku kufrisay iyo dadka baraayeen yuallimuna an-naasa dadkay baraayeen as-sixirka iyo wama unzila ala al-malakayn wixii lagu soo dejiyay labadii malag bibaabila meesha baabil la yiraahdana joogay magacyadoodana la kala dhihi jiray haaruuta iyo wamaaruut yani arintan oo nabi malagyadana waxay tahay xilligaas wadankan Ciraaq la yiraahdo meesha leedahay baabil yaa waxa jirtay dadku xilligaasi inay aad yani sixirka ay u baran jireen oo noocyo kala duwan oo aad u badan oo sixir ayay sameyn jireen markaas waxay sheegteen markay sixirka iyo indhasarxaad ay sameeyeen inay yiraahdaan waxaan nahay anbiya ilaahay rasuul ilaahay oo soo diray ayaan nahay waxaan aad arkaysaan indhasarxaada aan sameeynayna waa mucjize ma aha wax anagu aan sameeynay ma aha dadkii marka ku fidnoobaayo
intii sixir la isugu aadiyo un baa nabinimo loo sheegtaa kii waxoogaa sixir bartay oo dadkii nasraxaadiye wuxuu leeyahay bal waxyigan igu soo degay eega soo xaaladu ay tahay qaar dadkii kamid ah ku fidnoobay marka si marka arintaasi yaani dadka looga digo ya ilaahay xigmadiisa wuxuu u soo dejiyay dadka laba malag oo si yaani bini aadamka oo kale iska soo dhigay dabcan ayagoo malag ah dadku waxba uma sheegi karaan ya waxay u imaanayaan laba ruux ayagoo ah meesha ay imaanayaan waa meel wadankan Ciraaq ka tirsan oo Baabil la yiraahdo labadaas malag magacooda midna Haaruud ayaa la yiraahdaa midna Maaruud ayaa la yiraahdaa waxay dadka baraayeen marka noocyada sixirka ay dadkaani ay isticmaalayaan waxa loo baraayana waxay tahay dadku inay ku kala gartaan wixii sixir iyo wixii mucjizo ah ee ma ah malaa'ig ilaahay baa waxun ka shaqeynayso oo sixir dadka baraysa si dadka loogu dhibo arinku saas ma ahe si dadka loo badbaadiyo ya waxa la baraayay wixii noocaas u egna waa sixir wixii noocaas aan ahayna waa mucjizo wixii dadku marka ay hadaay uga dhigaayeen inay rasuul ku yihiin oo suxarada ay isku aadinayeen markii labada malagi ay dadka bareen oo dhaheen wixii noocaas aad ku aragtaan waa sixir ma aha oo sixir ahaan arintii iyo sixir si loo sameeyay ay ku barteen ayaa hadana looga digaayo oo waxa la war sixirkaas markaad saas u kala garataan ha oo isticmaalina meel xun oo dadka ha ku dhibina marka kuwani oo yahuud ahi waxa ay raacsan yihiin waa wixii shayaadiintu ay akhriyeen iyo wixii lagu soo dejiyay labadii malag ee xilligaas joogtay marka waxay sameyn jireen kuwan oo shayaadiinta ahi yucallimuuna الناس dadku waxay barayeen as-sixra sixirka ayay baraayeen iyo wama unzila wixii lagu soo dejiyay cala al-malakayn labadii malag ee Baabil meesha Baabil la yiraahdo joogtay magacooda la yiraahdo Haaruud iyo Maaruud la yiraahdo yani Haaruud iyo Maaruud waa labada malag magacooda Baabilna waa meesha Ciraaq ka tirsanayd oo magac ay dadkaas ay sixirka ay ku sameyn jireen oo labadan malagna lagu soo dejiyay wama yucallimaani min ahad yani labadaas malagi si ay dadka u baraan sixirkaasi ay iskaga difaacayaan waxan ma mucjiza mise mucjiza ma ah marka ay barayaan marka ugu horeyso dadka ay waaninayaan afeef iyo hordhac ay u sameynayaan waxay u sheegayaan waxan ay dadka bari doonaan waxa loogu talagalay waxa uu yahay markaas waxa la labadan malagi marka ay dadka sixirka barayaan oo ay yani si ay u kala saaraan mucjizada iyo sixirka ay wax u sheegayaan wama yucallimaani mabaran min ahadin qof حتى يقول إلى أي كير هذان لبضي ملك وايه إلى أي كير هذان إنما نحن أنه حانهي فتنة امتحان أيانهي فلا تكفر كفرين يعني هوشا لقو باردونه سحر كأه يعني هو امتحان وحلفيرنا يا دادكو أما روحو إنو سي عادي أو كوكلا قرتو معجزة إيا معجزة لأنتا أو إلهي كو أقوان صدو إنو يعني أبرتو إيا إنو سحن أبرتو أو دادكو أو كردبو qofka hadhow markii la baro asaga ayay u taalaa marka horta waa in loo digo leeyahay yaani sixirka ayaaba siisaba dhib badan marka waa lagu fidnoobaa cidii suxun u isticmaasho meel xun ay la aada iska jir yaani sixirkaas wuxuu la mid yahay wasaaisha hadda ama isku difaaco tusaalaan midna wax ka soo qaada ama tooridhe ama yaani waxyaaba ama waranka dhe ama wixii hub ahoo yaani dadku ay isticmaalaan dadku qofna wuxuu u isticmaali karaa inuu hantidiisa iyo naftiisa uu ku ilaashado midna wuxuu u isticmaali karaa inuu dad si xaq darra ugu dilo xoolo islaameed inuu ku dhaco yaani hubku waa hubkii marka sixirkan barigaasna saasoo kale ahaayo sixirka intii loo sheegay waxa la leeyahay ku kala garo waxaan inay mucjizo tahay inaysan mucjizo ahayn laakiin ha uu isticmaalin inaad ruux ku waxyeelayso ha uu isticmaalin ruuxi marka ruux ku waxyeeleeyay taladii ay labada malag siiyeen muuna qaadanine qof caasi ayuu noqonayaa sidii haddaba ruux hub u isticmaala si xaq darra u isticmaala hubku khaladka hubku ma laha ilan hubku waa qalab meel yaale ruuxa isticmaalay in dambiga iska leh waa aalad hadba si loo dhigo ayay noqotaa marka labadan malagi marka ay ruuxa ay sixirka u sheegayaan waxay ku leeyihiin yaani anagu fidna ayaan nahay yaani waxaan lagu baraayo waa wax dhib badan waa silaax duu xadayn waa hub laba af leh xagga khayrkan waa loo isticmaali karaa xagga xumaatadan waa loo isticmaali karaa adigu xagga khayrka u isticmaal xagga xumaatada u isticmaalin hadaad xumaatada u isticmaasho waad gaaloobaysaa saas ay dadku kula talinaayeen kuma yucallimaani ma ayna barayni min ahadin qof hatta yaqula ila ay ka yiraahdaan inma nahnu fitnatun fitna ayanahay fala takfura kufrin oo wixii lagu baro yaani si xun ha u isticmaalin markii saas ay u waaniyaan ayay waxay barayaan sixir waxa uu yahay iyo sida loo isticmaalayo markaas fa yatacallamuna dadkii waxay ka baranayeen منهما لبضي ملك وحي كبرنايان ما يفرقون به وحي كوكلا جيان بين المرء وزوجه يعني سحر كيف كبرتين واي معنا دادكي لان بن آدم وقتها يعني يدوس إن الله كعب سنين قلبكي وحكو حمين لهانا او هايستو وحي ايو استعمالها
dadkii markii sixirkii intii la baray la yiri maxay ahayd ha ku fidnoobina ku kala garta wixii xun iyo wixii san wixii mucjiza ana mucjizinimadiisu ogolaada wixii sixir ana sixirnimadiisu ogolaada la yiri xaqaas balamayna aadine isla markiiba wadadii looga digaayay ee dadka ku dhibina ahayd ayay u isticmaaleen waa qof hub haystay oo la yiri war hubkan dadka ku xiyaalaynin oo markiiba intuu hubkii furay dadkii wax ku yeelay qof xumaadeen iska dhawaay marka fayatacalamuuna dadkii waxay ka baranayeen minhuma labadii malag ma yufarriquuna wax ay ku kala geeyaan bihi asaga bayna almar'i qofka iyo wazawjihi xaaskiisa sixir ay isugu diraan laba qof oo isjecel oo reer ah oo isqabta yay sixirkii ku sameynayaan dadkii waxaan la arkay markiiba kala soo booday oo kala taagan war maxaa ku dhacay dadkan maya marrabo anna marrabo oo maxaa la rabay laadahay maya marrabo maxaa ku dhacay way sixran yihiin ilaan iyo yaa u isticmaalay kuwii sixirka la baray ayaa suxun u isticmaalay in saa loo isticmaalan la iskuma ogeeyna waa dad khaa'imiin ah wadadii loogu talagalay ayaga ayaa garab maray marka waxay baranayeen ma yufarriquuna bihi wax ay ku kala geeyaan bayna almar'i wa zawjihi qofka iyo xaaskiisa waxay ku kala geeyaan wama huma aysan ahaanin bidaarina kuwa dhibi bihi sixirkaasi min ahadin qofna kuma ayna dhibaynin illa biidnillahi ilaahi idankiisa ma ogiye yani hataa sixirkan ay isticmaalayaan inuu sixirkii wax qabto oo ruuxii uu si noqdaay oo qofkii uu dhibaato ay soo gaartay dhib ilaahi uma dadka ku ridi kara hadii ilaahi uu san dhibkaas qofka uu u idmin inuu ku dhaco sixirkaas hadii la isku dayo in lagu sameeyo waxba kama qaadaayo laakiin haduu ilaahi idmo ilaahi idankiisa wax uu ku yeeli karaa yani qalab walbana awood uu wax ku sameeynayo asaga daatadiisa ma wata idan ilaahi ayuu ku wataa yani hubku awood asagu uu leeyahay waxba kuma dilo wuxuu ku dilaa ruux ilaahi waqtigii uu ugu talagalay uu ka dhameeyay oo in la dilaay ay waqtigiisii joogto hadii loo isticmaalay qofkaas uu tagaya marka tagitaankan qudradan uu hubkan wax ku yeelay dadka waxa siinaya oo gelinaya ilaahi ayaa gelinaya inuu san asaga daatiisa waxba ahayn waxa ku tusaysa ka soo qaad dabka oo kale midalan dabka waa waxbu halaagaan haduu dab meel ka kaco ruuxii lagu dhaxridana wuu dhimanaya qalabkii gubtana wuu baabaa waxa dhacday nabi ibraahim calayhi salaam intii dab aad loo shiday lagu dhaxriday ayuu hadana guban waayay muxuu la guban waayay dabku awoodii wax ku gubi lahaa ayuu ilaahay ka bixiyay qulna ya naaru kuni bardan wa salaaman ala ibraahim marka dabku daatadiisu waxba ma hayee ilaahay idankiisa ayuu wax ku noqdaa oo wax ku yeelaa nabi ismaaciil ayaa nabi ibraahim ayaa inuu gowraco ayuu damcay toori intuu soo qaatay oo uu saaray ayay tooridii waxba goyn weysay maxaa yeelay lama idmin inay tooridii wax goyso marka kuwan sixirkan ay sameeynaayeen haduusan ilaahay ugu talagalin ruuxani inuu wax ku noqdo kuwan saaxiriinta ahi cid ay wax ka qaadi karaan ma jirto lan yusiibana illa ma kataba Allah lana wuxuu ilaahay qoray un baa soconaya marka wama hum aysan ahaanin kuwii sixirka bartay sixirkiisa wama hum aysan ahaanin bidarina kuwa dhibi bihi sixirki min ahadin qofna kumayna dhibi karaynin illa biidnillahi ilaahay inuu idmam ogi ilaahay idankiisa buu qofkii wax ku noqonay wayatacallamuna waxay baranayeen ma yadurruhum wax dhibi wala yanfa'uhum an waxba anfa'aynin kuwa sida xun sixirka u isticmaalay yani ayagu waxay islahaayeen faa'iideysto inta wax sixirtaan adduunyo aad ku heshaan oo yani wax aad faa'iideysataan ay islahaayeen laakiin way khasaareen waxayna ku khasaareen hatta hadii adduunyo la siiyo oo sixir intay sameeyaan dadku ay lacag siiyaan lacagtaasi waa xaraan qofkan adduunyada weligii ma joogaayo naar ayaa looga goyn doonaa marka sixirkan uu bartay waa sixir waa qalab asaga wax yeelaynaya marka waxa la yiri way tacallamuna waxay ka baranayeen ma yadurruhum wax dhibaaya ayaga wala yanfa'um an anfa'ayni laana sixun qofkii uu shaqeeyay intuu san cid kalaba wax yeelin naftiisa ayuu wax yeelaya oo hadda qofkii ka shaqeeyay inuu dadka wax yeeleeyo ama hub ku dhufto ama wax si kale uu yeelo horta koow asaga ayaa iskhasaariyay wuxuu isku khasaariyay jasadkiisan oo inuu yani badbaadiye ay ahayd oo naar uu ka badbaadiyo ayuu u bandhigay inuu naar uu ku dhaco marka intaasan qof kale la gaarinba naftiisi ayuusan u naxariisanin oo naftiisi ayuu halaagay kuwan marka sixirka markay barteen yani haddana sida xun u isticmaalaya si xun isticmaalkaasi dhibaato ayaa ugu jirta waxay ka faa'iideeyaan ma jirto hatta haddii adduunyo ku helaan adduunyo wax waligeed la joogi doono ma aha marka waxay barteen way tacalamuun waxay baranayaan ma yadurruhum wax dhibi wala yanfa'uhum an anfa'ayni walaqad haqiiqa calimu waxay ogaadeen liman ishtaraahu qofkii iibsaday oo khayrkii iyo iimaankii sixirkaas ku gatay waxay ogaadeen ma lahu inuusan u sugnaanin fil aakhirati aakhiro min khalaaqin wax yani nasiib inuusan aakhiro ku lahayn yani waxay og yihiin kuwan yahuuda iyo kuwa sixirka baranayayba ruuxii sixirka si xun u isticmaalay oo adduunyo ku raadsaday
oo iimaankiisii akhlaaqdiisii yani iska bedelay oo sixirkaas qaatay aakharo ilaahay agtiisa wax u yaala qofkaas male walaqad calimu waxay ogaadeen liman ishtaraahu qofkii gatay oo sixirkaas yani ku bedeshay akhlaaqdiisii wanaagsaneed maa lahu inuusan u sugnaanin fi laakhirati aakharo min khalaaq wax nasiiba wala bi'sa waxaa xumaaday maa sharow wixii ay gateen bihi asaga anfusahum naftooda ay ku gateen oo naftoodii inay badbaadiyaan ay ahayd oo ay ka daayaan wixii xumaan usoo jiidaaya ayay xumaato ku rideen naar ayaana ka dhalatay waxa guban doonana waa jasadkooda iyo jirkooda oo maqaarku markuu gubtadana maqaar hor la saari doono marka bedelkan ay qaateen oo ah inay sixir ay adduunyo ku shaqaystaan ay ku bedesheen janno iyo khayr ay helayeen waxaas wax fiican ma uusan ahayn walabiisa waxa xumaaday maasharu bi anfusahum naftooda wixii ay gateen law kaanu hadeeyihiin yaclamuuna kuwa wax garanaya tala ayaa la siiyay marka sida fiicna inay yeelaan ay ahayd walaw annahum ayagu aamanuu haddii ay rumayn lahaayeen wattaqow ilaahina ay ka cabsan lahaayeen lamahuubatun abaalmarin oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun uga khayr badnaan lahayd sixirkan ay isku mashquulinaayaan dantooda ma yaqaanaane intay sixirka iska daayaan oo haddii ay barteen xataa ay u baran lahaayeen maxay tahay inay ku kala saaraan wixii loogu talagalay waxan ma sixir baa mise waa mucjizo wadadan fiican ee loogu talagalay hadday u isticmaal lahayn ayaa u fiicnaan lahayd laakiin ma aysan yeelin walow annahum ayagu aamanuu hadday rumayn lahaayeen wattaqow oo ilaahay ay ka cabsan lahaayeen lamahuubatun thawaabin aba abaalmarin oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun uga khayr badnaan lahayd waxaana isku mashquulinayaan ee sixirka ah low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa wax garanaya saas umayna dhaqmeen maayo macnaha yacni qofka cilmiga lahi wax ku anfacaaya iyo wax ku dhibaaya markii cilmi loo bandhigaayo cilmi wuxuu sheegayaa wixii ku anfacaya inaad qaadatid wixii ku dhibaaya inaad ka leexatid laakiin kuwani cilmigaas ma ayna lahayne wixii dhibaayay oo ay ku xumaan lahaayeen ayay qaateen wixii ay ku badbaadi lahaayeen oo ilaahay intay camal saalixa la hortagaan la thawaabin lahaa oo janno la gelin lahaa way iska tuureen marka dantu waxay ugu jiri lahayd inay ilaahayna ka cabsadaan rumeeyaanna saasaa u khayr badnaan lahayd laakiin ma ayna samaynin maxaa yeelay aqoon ma ayna lahayn walow annahum aamanuu hadday rumayn lahayn wattaquu ilaahay ka cabsan lahaayeen lamahuubatun abaalmarin oo min cindi illaahi ilahay agtiisa ka hatay ayaa khayrun khayr badnaan lahayd oo waxaan isku mashquulina low kaanuu yaclamuuna haddii ay arrintaas ay garan lahaayeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu durna wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim aayaddan waxay ka hadlaysaa yahuuddi hadda aan ka hadlaynay dhibka badnayd yaa luqadihii lagu hadlaayey kelimo ka mid ah oo markii hore aan dhib weynba aan lahayn oo kelimo iska caadi a ahayd ayay waxay u rogeen wax la isku caayo kelimada raacinaa la yidhaahdo asal ahaantu wax dhib badan ma aysan ahayn kelimo iska caadi oo yacni nasug iyo naxanaanee iyo nasoo fiiri iyo sidaas oo kale ayay iska ahayd laakiin ayaga waxay u bedeleen raacinaadani inay doqonnimo ay tahay markaasaa markii muslimiintu ay nabiga la hadlaayaan oo ay ku yidhaahdaan raacina yaa rasuulallah rasuulka ilaahay oo nasoo fiiri oo naxanaanee oo nasug ay dhahaan qosol ayay isku daraayaan waxay leeyihin bal kuwan nabigoodii caynaaya ee raacina ku leh bal ka warrama markaasaa istihzaa iyo jaasiyaas kelimadii ayay ka dhigeen kelimadii marka la xumeeyey ayaa mu'miniinta waxaa lagu tarbiyaynaya marka kelimadu marba hadday yahuuddu si xun u isticmaaleen oo ay xumeeyeen inaan mar dambe aan nabiga ayna ku dhihinoo ay ugaba guuraan kelimada oo dhan ba iska dhaafaan oo ayna nabiga kelimadan ay yahuuddu xumeeyeen ayna nabiga ku dhihin maxaa yeelay haddii kelimadu marka hore caadi iska ahayd hadda habka loo isticmaalayo caytin ay noqotay oo doqonnimo ay ka wadaan idinka oo mu'miniina kelimo ay yahuuddu xumeeyeen haba ku dhihina kelimo kale oo macnaheedii wadato oo aan ayada ayna xumaynin yahuuddu taas ayaad dhahaysaan marka aayaddan ilahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nabi rumeeyo mu'miniinta lala hadlaaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu hadhihina raacinaa hadhihina kelimada raacinaa la yidhaahdo haba dhihina aslan raacinana macnaheed waxay tahay macnaha carabi ahaan marka la yidhaahdo waa una soo eeg ama na soo fiiri ama na xanaanee raacinaa yaa rasuulallah ayay dhihi jireen markaas waxaa leeyahy kelimadan yahuud ayaa xumaysay raacina hadhihin yani kelimada iyadoo marka hore yani iska caadi iska hadii la xumeeyo waa laga guuraa tusaalahaan midna af Soomaaliya oo kale hadaan soo qaadno kelima aan dhib badnayn oo iska caadi ah oo aan caytin ahayn oo waliba laakiin ixtiraam inay tahay yani ay u badan tahay yaa mararka qaarkood intii dhalinyaradu ay xumeeyaan ayaa waxay noqonaysaa wax kale tusaalahaan midna kelimada la yiraahdo adeer waa kelimo yani caadi ah oo aabaha ninka la dhashay ayaa adeer la yiraahdaa adeer ayuu yahay adeer ayaan u ahay waa kelimo iska caadi ah laakiin dhalinyarada way yaqaanaan mararka qaarkood intay xumeeyaan
يا قفك مركي ربان إنها وقف ربادية أو وحبك كلا جرينين ودقنا يا وحالي هبل كورن وهبل نقدر في هبل وأدير أدير معناه هذا مركز وحيد تاي ودقن وين معناه على جوده مركي ساس أو كلا إنه قطعين تاسي روحي ساس كوير هذا وكدم بابايا مر ده أنا كلمة عادة أنا سكت ده ما حد بيقول سو جارة كلمة عادة إيه هاي لكن هبك الله استعمال إياه الحمي يهود مركي كلمة راعنا ليراهو ومركو عادي إسكا هاي أيه فول حمايين ودقن ما كدجان قف مؤمن كمركو إنسك دايو مركي يا أيها الذين آمنوا وحال يكون مؤمنين تهو لا تقولوا هذه راعنا كلمة راعنا ليراهو مركي النبي إن السوق لذيهم هذه راعنا هكذا هنا إيه وقولوا وحاتر هذا انظرنا نصافير ولا بكلمه ماشي راعنا كده أنت اسكدي راعنا كلمات كلا عن حمين أو يهود أين ولي أين حمين أو انظرنا تصدها وهذا دين النبي لو يرى انظرنا يا رسول الله يا راعنا يا رسول الله راعنا هدي لي هذا يهود ويقص لنا حيلهم دقن أي كله النبي قودي انظرنا هدي لي هذانا وكلمة إسك عادي وأكتر عاي كما مركا واحد نبي عاي أسو جيدي سو يهود أو يقانان إذنكم مؤمنين هداتين كلمة ذات الفول حمي حسي وذنا واي معنا لا تقولوا هدينا راعنا وقولوا حتى انظرنا نسوق أما النصائق أما النحنانه واسمعوا مغلا وحي لذي الله وللكافرين قال هذا وحا أسقنا ذي عذاب يا أسقنا ذي أليم مؤلم وحنوجيا أي قال أي ليهن ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود مجعل الذين كوي كفروا قالوا بي مجعل كوي قالوا بي ومن أهل الكتاب ككمد ولا المشركين يا مشركين كوا أهل الكتاب يا مشركين كمد مجعلوا أن ينزل إلا سودجيو عليكم كركينا من خير أو من ربكم ربكين حقي سكاهذا يعني حقيقة أهل الكتاب كيهودي النصارى إيو مشركين تا أو عرب تا أو مركز جوجي وحنا نبي يودي دينهين أي نبي الله كشفي الله شيء وحالي ما كان أهل الكتاب كأي قال هذا لا سعتاي وح يقولوا عليسين وح كلام معه إلهي خير كيس أو النبي لماذا أو النبي إلهي أذيك وكوسو دجي أو كل جعل هذا مؤمنين هداتهين القرآن كاس قيمها بدن النبي قال له سود دبل كوسو دجي أي إذين قوري لا أيهين تاس أي ديديهين marka cadaawadoodu waa cadaawad yaani ku saabsan maxaa idinka la idinku soo dejiyo quraan nabiga maxaa nabi looga soo dhigay kaanahu maxaad u malaysaa in ayagu qofka nabi laga dhigaayo in laga tashanayo waxay u malayaan sida madaxweynaha la dooranayo codka bixiyo oo kale oo rasuulnimadaba in ayagu codayaan ay rabaan rasuulnimadu ilaahi cidu rabu ka dhigtaa Allahu yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min an-nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ilaahi asaga ayaa og meesha uu dhiganayo marka maxaa rasuul looga dhigay ayay colaad ka sameeyeen waxa nabiga ay ula dagaalsan yihiin waa intaas saliim ma yawadu maj'alaanayaan alladina kafaru ku gaaloobay oo min ahli alkitaabka kamid ahli alkitaab waxa leeyahay waa yahuuda iyo kristaanka maj'alo wala mushrikiintuna maj'alo an yunzala in la soo dejiyo calaykum korkiina min khayr oo min rabbikum rabbigiina xaqiisa ka ahaada in la idinku soo dejiya ma ay ogolo maj'alaanayaan wallahu ilaahina يختص قاريلا برحمته نحريستيسا والنبي نمضى من يشاء روحه دون أيكو قاريلا النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول لقد نجي دونه وحسوا وكنت الشضيء وقام معه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب يعني إن لقوسوا الدجين دونه أما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كتاب وحي إيمان وحي ماذا نقين أسوأ مال إسك جوجو إسك خيرك إلهي إسك جعليسي أمبا اقرأ باسم ربك الذي خلق الغسو الدجي نعمداس أيضا أي نحريس تاسي إلهي أي نبي كو غاريالي أمدها عالم كورنا نحريساس أي نبي أوضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله إلهي يختص وغاريالا برحمته نحريستيسا من يشاء روحه دونه كو غاريالا وعده رسول كدغنايو oo naxariista rasuulnimada uu siinaayo ilaahi asaga ayaa dooranaya wallahu yaqtasu bi rahmati man yasha wallahu ilaahi dhul fadli alla fadli u saaxiiba ayu ahaaday العظيم أو وين فضل وين أي إلهي ساحب يهي ساسنا رسول uga dhigay oo rasuulka fadli weyn ayu ilaahi siiyay وكان فضل الله عليك عظيما rasuulka ilaahi fadliga ilaahi aad ayuu kuugu weyn yahay inagana fadli ayaa inoo yahayo kitaabkan qiimaha badan iyo rasuulkan qiimaha badan in ilaahi uu ina siiyay waa fadli ilaahi uu nagu manaystay loona baahan yahay inaan ilaahi uga mahad celino oo alxamdulillah intaan dhahno aan quraankeena ku amal fal nabigeena aan raacno fadligaas ugu dambaysana jannada aan ku galno ilaahi cidu rab ayuu siiyaa wallahu ilaahi dhul fadli alla fadli saaxiib ayuu hada al-azimi oo fadligiisu uu weyn yahay darsigeenu maanta intaas ku ogyahay وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته